carbeed ee Adham Nabulsi oo muusiga munkarka iyo codkiisa dabacsan ku maaweelin jiray malaayiin mucaashaqiin faneeda ayaa isku bedelay imaam masjidka ka tujiya salaadaha Allah uu ummadiisa ku waajib yeelay kolkii uu ka toobad keenay heesaha fawaaxishta oo uu kaga mid noqday hoobalada loogu jecel yahay dunida Carabta. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. yaraantiisii intaan muusikhinadu tiyaatarka uga durbaantumin wuxuu ahaa xaafidul qur'aan qiraa'adiisa la jeclaysto balse wuxuu ambaday dharaartii uu ka qayb galay barnaamijka hibada fanaanka Jordan ee uu ku guuleystay kaalinta labaad ee fanaanka codka dahabiga leh. Adham Nabulsi oo ilmeynaya ayaa maalmo ka hor ku dhawaaqay inuu ka fariistay fanka oo alle uu dambi dhaaf weydiisanayo. Masjid ku yaal magaalada Ammaan ee caasimadda Jordan ayaa looga duubay muuqaal warbaahintu faafisay isagoo cod aad u macaan oo jameecadu ay ku khushuuceen ku tujinaya salaada cishe, taasoo ka dhigan in Allah subxaanahu wa ta'aala uu xaqa waafajiyay. walow uu fanka dhaqaale iyo magacba ka tabcaday, haddana waxa uu ka qoomameeyay sida uu ugu sirmay heesihii uu masraxyada ku siraadi jiray iyo waxa u dambayn doona dadkii uu dhagahooda muusiga ku shubi jiray. Adham Nabulsi waa fanaan carbeed oo reer Urduna balse ku abtirsada muslimiinta Falastiin maadaama awoowayaashii ay ka soo farcameen daanta galbeed ee Gaza. sanadii 1993 ayuu ku dhashay xaafadda Shamazani oo ah midda ugu casrisan degmooyinka ay ka kooban tahay magaalada Ammaan ee caasimadda Jordan. 7 jir markuu ahaa isagoo dhiganaya dugsiga Qur'aanka Kariimka ayay soo burqatay burhaantiisa codeed, kolkaasoo macallimiinta iyo ardaydu ay u riyaaqeen sida uu codkiisa macaan ugu raaxaysanayo akhrinta Qur'aanka Kariimka, taasoo uu ku gaaray inuu noqdo kabiirka ama horjoogaha ardayda. balse ilbaxnimada iyo xadaaradda ay caanka ku tahay degmada Shamazani ayaa tusisay fursad aan wanaagsanayn ula soo muuqatay inay guul u horseedi karto hadafkiisa nololeed, taasoo ahayd inuu ku biiro fanaaniin da'yara oo masraxiyadooda ku soo bandhigi jiray aagga Jabal Ammaan oo ay ka buuxeen baarar iyo maqaayado lagu qaxweeyo dadkana lagu maaweeliyo. maadaama uu ahaa garudambayska 4 wiil oo ay ku indhakuulato Adham, waxay hooyadii ku dhiirigelisay inay u rumaynayso riyada hurdada u diiday wiilkeeda oo ahayd inuu noqdo heesa caana oo magaciisu ku faafo carro edeg. magaca Adham ayaa qabsaday shaashadaha telefishinada maxalliga markii uu wacdaro ka dhigay barnaamijka hibada muusiga X Factor ee taxanaha TV-ga Carabta oo ay ku loolamayeen da'yar daneeyayaal faneeda. xeer beegtida oo u badnaa fanaaniin heesahooda laga daba dhacay ayaa xilligaa afka uga sheegay inuu leeyahay ishaarada hoobalka jiilka cusub. 8 sannadood oo muusiga iyo mikrofoonka uu ku soo caanamaalay, wuxuu noqday fanaan aragtidiisa lacag lagu bixiyo, bandhig faneedyadiisana la soo camiro, taasoo ka saaciday in loogu yeero kan ugu wanaagsan faciisa iyo fanaanka qarniga. heesihiisa caan baxay waxaa ka mid ah heesta Khayfat Kuni Ma Bitxibini oo janalkiisa YouTube-ka bilooyin gudahooda ay ku daawadeen in ka badan 70 milyan oo ruux. 2 toddobaad ka hor warbaahinta bulshada waxaa si weyn ugu faafay cod laga duubay fanaanka reer Urdun ee Adham Ma Bitxibini oo janalkiisa YouTube-ka bilooyin gudahooda ay ku daawadeen in ka badan 70 milyan oo ruux. 2 toddobaad ka hor warbaahinta bulshada waxaa si weyn ugu faafay cod laga duubay fanaanka reer Urdun ee Adham Nabulsi oo akhrinaya aayado ka mid ah Qur'aanka Kariimka maalmo kadib markii uu ku dhawaaqay inuu fanka ka fariistay. hadda oo uu soo gunaanaday waayihiisii fanka fawaaxishka, wuxuu sheegay inuu muddo dheer ku taamayay inuu joojiyo heesaha maadaama aan Allah raali ka ahayn. wuxuu kaloo tilmaamay inuu raaxo la'aan iyo walbahaar ka seexan waayay intii uu fanka ku jiray, wuxuuna yidhi, riyadayda iyo hiigsigaygu ma ahayn mid Allah raali gelinaya. waxaan caddaynayaa inaanan raaxaysan tan iyo markii aan fanka soo galay. waxaan ahaa sida qof ka shaqeeya dukaan oo dareemaya raaxo la'aan noloshiisa oo dhan. sidaa darteed waxaan go'aansaday inaan isbeddelo. Adham Nabulsi ayaa ku celceliyay inuu toobad keenay oo Allah dambi dhaaf weydiisanayo,
wuxuu kaloo tilmaamay inuu masjidka ku nagaan doono si uu u guto waajibaadka diiniga ee Allah uu ku waajib yeelay. hadda waxa uu isku diyaarinayaa sidii uu u noqon lahaa iimaan buuxa oo masjidka ka tujiya salaadaha faralka. mar wax laga weydiiyey dhaqaalaha ka soo gala xayeysiimaha iyo waxa uu ka yeelayo heesaha ku jira barihiisa internetka, waxa uu yidhi, waxa aan masaxayaa ilaa 10 heesood oo igu kaydsan janalkayga. si fudud looma baabi'in karo heesaha oo dhan, sababtoo ah meelo badan ayay ku kaydsan yihiin oo dadka qaar ayaaba ku degsaday aaladahooda. waxaan codsanayaa in la iska tirtiro. qandaraasyo badan ayaa jira, waase in la diyaariyo soo afjar